faaqidaada iyo gorfaynta siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku dangaarka qabiilka iyo qabyaaladda faa'iido mise khasaare maxay ku haddaba siyaasiga iyo xildoonaha Soomaaliyeed oo hadlay wuxuu yiri sidan anigoo magacaygu yahay kiciyaha qabyaaladda iyo isku dirka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka shaqeeyaa kaliya dantayda waxaan rabaa inaan saan doono hadba ku bedelo shanahay shaarka qabiilkaaga taladayda oo kaliya ayaa socota qaado ama ha qaadan iyada unba ah tasaxda waxaan ka faa'iidaa maal iyo magac waxaana ka helaa wax walbo dantayda ah iyo ta ubadkayga waxaan ubadkayga geeyay dibadda si ay nabad iyo nolol wanaagsan iyo waxbarasho iyo caafimaad ugana helaan ugana saramaraan dhigooda kaadhka iyo jaranjarada aan ku fulayo kursigan ama xilkan aan doonayo waa mid aan adiga ka helay anigoo isticmaalaya caqligaaga Soomaaliga ah ee aan fakarin adigoo ah indha ku garaadle wax dhow arka laigamana garto waxaan ahay xariif yaqaana sida loo bedelo ama loo jeediyo qabiilka aan wax ku doonayo ama aan sheeganayo waxaana halku dhigi ah ku baaqista dagaalka iyo barakicinta kala guurka iyo dhiig daadinta si aan dantayda ugu gaaro qabiilkan uguna adeegsado qaybta xun inta kadib waxaan qabiilkayga ka helaa taageero iyo iskarabtaag heel dhan walba ah oo laga fiirsan ilaa layga gaarsiiyo kursigii aan rabay guulna aan ka gaadho waana email martay wixii aan doonayay taasoo ahayd in aan helo xil iyo lacag oo aan mar uu noqdo madaxweyne ama xildhibaan waxaana la soo gaadhay waqtigii aan wax walba jeebka ku shuban lahaa oo aan dal iyo dadba aan cuni lahaa marna waxaan ahay muxaafid waa haddii aan dantayda ka dhex arkee marna waxaan ahay mucaaradkii ugu weynaa waa markii aan dantayda arki waayo deegaankan aan sheeganayo ama aan magaciisa guusha ku gaadhay malaha caafimaad biyo nadiif ah iyo jidad wanaagsan waxaana ragaadiyay colaado abaaro iyo waxbarasho xumo horumar la'aan iyo dib u dhac ti abid ugu weynayd kaliya waxaan halkan u joogaa si aan kursigan macaan ugu fadhiyi lahaa uguna sugi lahaa dambe ee soo socota si dib laygu doorto mar labaad haddaba jaalayaal halkaad nagala socotaan waa channelkayga YouTube Cabdixakiin 04 channel